maanta cashirkeena waxaan kusoo qaadanaynaa asxaabteena qofkii blog ku saaray sidee ku ogaan kartaa inuu blog ku saaray adigoo dib badan u marin ama meel badan aad u marin. way fududahay taas sida ku ogaan qofkii blog ku saaray. horta labadan telefoon ayaan soo kala qaadanay. mid koowaad kana wax magacaasaan ku qoray aad u jeedi, kan kalena magacaasaan ku qoray. qoraal ayaan u qoray marka hi ayaan u qorayaa telefoonkan kale labaad. hi marka uu soo dhacday blue tick ayuu noqday. kan adana hello baan ka qoraynaa. waxaan u qornaa telefoonkan kale hello wakaas waa asagana oo baxday asaga adana waxay u noqonaysaa blue tick. yacnaha qoraalayaasha qofkan way isdhaafsan karaan. waa laba qof aan isblog gareyn, wax blog ah kama dhexeeya labadan qof. hadda marka blog ayaan saarnaa mid ka mid ah telefoonashan aan mid blog saaraa. waa ujeedaa blogi ayaa markaa saas meesha kor ah blog ayaa ku dhufanaysaa. qofka marka sidaas ayaa markuu blog ku noqonaya. markuu qofka blog noqdo oo meeshan horta accept adaysa blog waa ogolaanaysaa marka in qofka blog asartay. marka ku dhufto qofka ina blog saartay waxa koowaad ku soo boodo waxa way qofkii sawirkiisa ayaa horta dhumaya. sawirka aad ku ogaado profile ku saarna qofka horta ma arkeysi. taas waxa kamid tahay qayb kamid ah inuu qofka blog ku saaray aad ku ogaanaysi. aan si socono qofkii blog la saaray ayaa wuxuu qoraa qoraal ah inuu qofkii uu marka uu ka filin inuu blog saar inuu blog saaray. qoraal ay u qoraysaa marka hi di adiga way ka baxaysaa hal tig ayaa fuulaya. qofkan kalena ma gaarayo qoraalka yacnaha qofkaas u dirtay hawada ayuu ku dhumay. qoraal kale hadana diraysaa sidoo kale hadana hawada ayuu ku baaba'ayaa ee qofkaas ma gaarayo. adiga weli qoraal aad diraysaa waxa u malaynaysaa inuu qofkii qoraalaha gaaray laakiin ma gaarayaan. wakaas weli waa ku wadaa qoraalka marka qofka ma gaarayo. qofka marka blog ku saaray sirta marka inaad ku ogaato qofka inuu blog ku saaray iyo ina kale waa fududa midaas. waxa ku dhufanaysaa marka kii blog ku saaray ayaa ku dhufanaysaa. ma ku dhufatay aad aragtay sawirkiisa profile intuu saarneen waxa hagaajinaysaa group chatting ba hagaajinaysaa. new group aad dooranaysaa. new group kama ka dooratay qofkii aad rabto ayaa ku soo daraysaa marka hore. qofkii aad ka filinayso inuu blog ku saaray ayaa marka ku daraysaa. group waxaan u bixinaynaa test macnaha maadaama aan test gareynayno. waa ujeedaa qofka waxa la leeyahay groupka laguma soo dari karo. weli waxaan sii aadana meesha marka aad ah in qofka group ku darno mar labaad aan rabnaa. waxaad tagaysaa meesha aad participants aad tagaysaa qofkan blog saarno waa aanaad ku dhufanaysaa marka blog waxaa lagu leeyahay markaas could not add ana yacnaha waxa waaye qofkii blog ku saaray kuma dari karti group. taas waxay ku fududaynaysaa inaad ogaatay qofkii blog inuu ku saaray. weli marka kama qoysanaysi wadana mar labaad ku dayaysaa. weli sida ayuu soo qoray yacnaha taa waxay ku tusinaysaa qofkaas blog ayuu ku saaray. hadduu qof blog ku saaray group chat ayuu hagaajisanaysaa waa ku daraysaa. haddaa ogaato qofka inuu groupkaas loo ogolaan inuu soo galo yacnaha waxa waaye blog ayuu ku saaray. marka blog aan ka qaadaynaa aan blog baan tagaynaa. blog markaan ka qaadno qofka marka blog waa laga qaaday. midda koowaad ku soo booda waxa waaye sawirkiis ayaa horta ku soo boodaa inuu online yahayna waad arkaysaa. markaad groupkan ku darno maadaama groupka aan hagaajinay oo ku darayna waa ka sawirkiis uu soo booday aad aadayna hor ayuu kaga qaatay waa lagu daray groupki. marka groupkan qoraal ugu qorayna sifu uu marka uu ku fahmayo wakaas. groupki iyo added ana yacnaha waxa waaye qofkii blog horaan aan saaray blog markaan ka qaadnay aan groupka kusoo darana hor ayuu ku qaatay uu ka ogolaaday in marka uu groupka kusoo biiri karo. marka qoraalayaasha hadday aan dirnay hawada ayaa lagu cunay oo asaga may gaan. hadda qoraal labada aan u direynaa waxaana ku ogaanay inuu qofkaas gaaray ina kale. mid kale waxa ku ogaanaysa qofka marka blog uu saaro qoraal marka uu qortay hal tig kali ayaa ku fuulaya. hadda qoraal ayaa u qoraynaa hi didi aan dirayna. isla markii qofkii uu helay blue tick ana soo fuushay. hadduu arkina laba tig ayaa fuulaysaa yacnaha waxay tusinaysaa qofkaas blog kuma saar sawirkiisana wuu ku soo baxay. marka haddaa is leedahay wax badan ayaa ka faa'iiday channelkan please subscribe no isar adigoo marka waxyaalo badan aad iga faa'iiday doonti anna aan ka faa'iiday doono.